السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا قيبتي سدحاد CapCut فيديو إديتين. qaybtan maanta waxaan ku baran doonaa sida loo sameeyo slow motion ama videoga looga dhigo mid si tartiib ah u soconayo. Sidoo kale waxaan ku baran doonaa speed up ama sida fast looga dhigo oo loo boobsiiyo muuqaalka. sidoo kale qaybtan waxaan ku baran doonaa split screen sida laba video ama la isku dul saaro ama la isku dhinac dhigo. fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, like na dheh, una share garay asxaabtaada kale si ay uga faa'iideystaan videoga. ugu horeyn waxaan soo gashanaynaa video ama muuqaal aan soo gashan doonaa. waxaan tegaynaa qaybtan videoga noo soo geli. okay, sida caadiga hadda muuqaalkan markii aan play dhaho waa ujeedaa waa normal speed. muuqaalka si aan uga dhigno marka slow motion haddii asaga dhan aan rabno inaan ka wada dhigno videoga oo noo dooran, waxaan tegaynaa meesha ay ku qoran tahay speed, kadibna meesha 1.0 ay ku qoran tahay waa normalka caadiga markuu muuqaalka uu yahay. haddii falaarta dhinacan aad u badiso macnaheedu waxay tahay speedka ayaa ku daraysaa, haddii aad yareysana waxaa ka dhigaysaa slow motion. muuqaalka marka qayb ka mid ah waxaan ka dhigaynaa slow motion, qayb ka mid ah muuqaalka waxaan ka dhigaynaa slow motion. tusaale ahaan qaybtan oo kale meeshaan marka aan marayna speed aan leenahay. okay, wax yar ilaa intaan noo geey, haddana intaan waxaan leenahay split. okay, qaybtan dhexe aan rabnaa marka inaan slow motion ku sameyno. marka hore muuqaalka dooro, kadib waxaad doorataa speed haddii aysan ku doorneen, kan soo yaree. for example meeshaan waxaan ka dhignay 0.5, macnaheedu waxay tahay speedka uu ku sociyey 50% ayaan gadaal ama hoos u dhignay. aan fiirina marka muuqaalka. okay, sida aad dareemayso marka kan waa slow motion qaybtan. haddana slow motionka wuu ka baxay, sida normal speedka uu ku laabtay. okay, aan ka sii yaray 0.3 aan geynay. marka hore aan kasoo bilaabeynaa normal speedka caadiga, kaas waa normal speed. okay, waxaan soo galnaa marka slow motion. xoogaa computerka ku dhegdhegaya, laakiin markii hadhow muuqaalka la save gareeyo waad dareemaysaa slow motion inuu tartiib u soconayo muuqaalka. maraan 0.4 oo kale aan dhahno. okay, waad dareemaysaa marka slow motion u socda muuqaalkan. sida cagsigiisa marka see uga dhigi karnaa speed up ama aan muuqaalka fast uga dhigi karnaa. qaybta yar markii aan soo gaarno muuqaalka inuu saaid u xawaarayaan rabnaa, waxaan sameynaynaa falaarta qabo dhinaca kale u wad. meesha hadaayo uu 1 ahaa waxaan ka dhignaa 1.5, waa 50% waxaan ku badanay xawaaraha. fiir marka meesha soo gaaro saaid u socno. okay, waa sii badi karnaa. muuqaalka aan doorto marka hore. markaas markuu meesha soo gaaro marka wuxuu sameynayaa aad u xawaareynaa, kadibna normalkiisa kusoo laabanaa. si xawaarahaas aan u dareyna qaybta dambe waxaan ka dhigaynaa slow motion 50% ee gadaal usoo celinaynaa 0.5. fiir marka markaas qaybtan dambena waa slow motion, qaybtanna qaybtan dambe waa slow motion, qaybtanna waa speed up ama waa xawaare sare. okay, sidaas ayaa loo sameeyaa slow motion ama speed up loogu sameeyaa videoga muuqaalka. waxaan kaloo ku xijinaynaa sidee loo sameeyaa split screen. muuqaalka aan iska tiraynaa. labadan muuqaal aan soo qaadanayo. control aa qabanaysaa markaa rabto laba muuqaal hal mar inaad isku soo qaado. kanaan doortay control aan u haya, kan kale click sii labadooda open and hal mar isoo wada qaad labadooda intii soo dhig. okay, si marka labada muuqaal aan uga dhigno split screen ama aan isku dul saarno ama aan isku dhinac dhigno, waxaan marka hore u baahannahay inaan muuqaalada isdul saarno. labada muuqaalkan hadda wuxuu naga qarinayaa muuqaalkan kale. si marka muuqaalkan kore muuqaalkii ka hooseeya aan u aragno oo split screen aan uga dhigno, waxaa sameynaynaa marka hore muuqaalka dhinac noogu sik. tusaalahaan meeshaas oo kale noo geey. marka meesha aan geyno waxaan sameynaynaa isla muuqaalka asagoo noo dooran
waxaan tegaynaa mask, waxaan leenahay meesha ay noogu qoran tahay horizontal. sida marka oo kala jarna anay hadda qaabkan ma rabno, qaabkan waa arki doonaa, laakiin hadda qaabkan ma rabno. waxaan rabnaa inaan macnaha dhinac isku dhigno. sida darteed marka meeshaan hadda rotationka oo 0-ga ah ayaan waxaan geynaynaa -90 ama kana wareeji kartaa -90 markii aan geyno -90 calaamadda aan bahashan soo qabsan soo siki ilaa meesha aan rabto keen. okay, muuqaalka ka hooseeyo isagana dhinaca u siki, dooro muuqaalka ka hooseeyo dhinaca u siki. okay, kan hore noo soo celi, calaamadda waxay weli noo siki ilaa garabka geey. okay, waxaan sameynaa marka fiiri laba muuqaal oo isdhinactaan. marka split screen marka aragtay inaad sameysid qaabkaas ayaa loo suubiyaa. waxaad sameynaysaa marka hore labada muuqaal isdul saar, mid ka mid a muuqaalada dhinac u siki, kan kalena dhinaca kale u siki. kadib waxaa suubisaa midka kore dooro, waxaad tagtaa maski horizontal leh, kadibna rotationka kan wareeji ama meeshaas waxaa ku qortaa -90, kadib muuqaalku ku kala jarmaayo. qaabkan waa markii aan rabno inaan u sameyno qaab vertical ahaan ah. sidee horizontal ugu dhigi karnaa? horizontal markaa ka dhigayno waxaan ka dhigaynaa 0 aan geynaynaa digriga, muuqaalka kore ii door, aan kusoo laabto meesha basic ay ku qoran tahay. marka muuqaalka inaan move garaysa aad rabtid waa inaa imaadaa basic. okay, kan hoose imaad isagana soo siki, laakiin hoos u soo siki. waxyar haafkaan aan ka jaraynaa, aan ku laabana meesha ay ku noogu qorneyd waxyar koraan u celinayna. okay, kan ku laabo hal mar maskiga. markaa mask ku laabato calaamad yareedso aan soo jiid, isku dheji labada video. aan bilaydhahan marka muuqaalka qaabka u ekaanaa fiiri. sidaas ayaa loo sameeyaa split screen. fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, videoga haddii aad ka heshayna like saar, asxaabtaadana la wadaag. aad u mahadsantihiin dhammaantiin.